بسم الله الرحمن الرحيم وسم تركي اسكول مقالة مقدشة اسكول باللغة التركية مقالة مقدشة دي جد حرونتنا إيمانيس أدوية لجلاسة أصلا صح حاضر هدية جوين قابلين هجرة حرونتنا ما مقدشة دقمة هذا تلاح دبر كدم فتح تلاح كاسو أدكيس جلاسة تاسكلو سو حاضري لغة دام اللغة دي أفضل عشرة كين هذا حواي طب ناد سيدان فيليو بوجيني يونسمري لغة دي أدوني سنة دقدو كبرت حرونتنا سوغر هارو waxaan usoo dhaweynay chapter 1 waxaynu bilaabaynay chapterkii saddexaad chapterkii labaad ilm ama ilms qoyskeena waa qoyskeena sidaan fili cashirka intaynu bilaabin ama chapterkeeni qaybtii sagaalaad kuwaan in xoogaa lasoo fahmayaan filayaa hadda kan waa kii tobnaad toos ayaynu u bilaaban doonaa unity hazilial ure waxyaabaha cutubka laga diyaariyo ama waxyaabaha aad ku qaadan doonto kow waxaa lagu kaajiyaa shindaasan ama kaaj kaardishin var imise walaal ayaad leedahay evenis nerede waa halkee gurigiina evenisde gurigiina neler var maxaa yaallo guriga waxyaabaha yaallo iyo waxyaabahan aalin halkuu ku yaallo gurigiina intaas ayuu xooga saari doonaa chapterkan kolka ugu horeeyo wuxuu ku leeyahay merhaba yiri dinleyl aynu dhegeysano tamamlayalam aynu dhamaysana ben kimim yaan ahay islaantaas ayaan sidaan filiyo iska hadli doonto waa kan marka qaabka ay isaga hadlayso marka sidaas oo keento adiga inaad isaga hadashaa la rabaa oo aad warqad ku qorto merhaba ayaa tiri adam maryam magacaygu waa maryan on yashindayim 10 sano ayaan jiraa beeshinji sinifta galaaska shanaad beeshinji waxaa shanaad sinif waxaa fasal beeshinji sinifta oranjisim arday waxaanahay fasalka shanaad istanbulda yashiyorum istanbul ayaan ku noolahay baaba mim aabahay aad magaciisa kemeel ayaa la dhahaa anamin hooyaday aad magaceeda imina ayaa la dhahaa uj kardeshim saddex walaal var ayaan leeyahay uj waa saddex kardesh waxa walaal im waxa waayo lahaansho saddex walaal ayaan leeyahay aabeeyin uu yidhi aabeeyin waxaa lahaa walaalka kaa weyn aabeeyin muraad walaalkii midkii weyn waa muraad yirmi uj yashinda 23 sano ayuu jiraa oo asaga mimarwa injineer dhismo ablam walaashay iga weyna yareen ayaa lahaa onyed yashinda waa 17 sano jir oo ayada lisade dugsi sare orange waa arday dugsi sare aabeeyin walaalkeyna sedat ayaa la dhahaa ombeesh yashinda waa 15 sano jir oo asaga daa sidoo kale lisade orange waa arday dugsiga sare intii hadda macalin aad soo qaadato intii hadda aan soo qaadanay waayo intaan wax hadda ku cusub malaha waa islaantii iyo qoyskeedii halkan marka waxaa laga rabaa tan waa hooyada waxaan rabaa aabaha kan waa hooyada kan waa walaalkiisa ka weyn kan waa walaashiisa ka weyn kanna waa walaalka weyn magacyadooda ku kala qorqor macalin ka soco oo ku yeelam tamaam la yeelam waxaa la yidhi aynu akhrino aynu dhamaystirno aylimi joog savirum qoyskayga aad ayaan u jeclay aylimi qoyskayga joog savirum aad ayaan u jeclay aylem waa la gartay iidaas maxay tahay iidaas waxaa waayo biletmi hala ikmiya mise waxaa waayo bilertili isim tamlamasi garaamarada macalin xooga hala iska saaro garaamarada xooga hala iska saaro halka macalin waxaa ku yaala qoyska waa geed la dhisay waayo waa ka socaya macalin ninka baynu akrinaynaa aan soo dhawey macalin inta macalin aan
cashiro ku dadaha keli waa in waxaan rabaa si fasiix ah loo arkaan rabaa waa som turki iskuule magaalada muqdisho iska luqa turkiya merhaba aadam kemal uu yiri magacayga waa kamaal anamin aadi hooyaday magaceedana asumaan ayaa la dhahaa baaba min aadi mustafa aabahay magaciisa waa mustafa qofkan waxaan nahay isku magac baabam aabahay teerzi waa harqaanle anem hooyadan ev hanam waa guri joogto biirkiis kaardishinvar hal gabar ayaa ila dhalatay onun aadi magaceeda filis ayaa la dhahaa oo ayada kirkibesha shindaa 45 sano jir kaardeshim walaalkayna avocado waayo avocate oo asaga evli waayo xaasle kaardeshimin kojasi walaa kaardeshimin kojasi ifraax walaalkay xaaskiisa ifraax ayaa la dhahaa online ayaga uju jufar saddex xarur ay leeyihiin zaynab omer ve iyo esra waa saddexda magac aylimi joog safiiran qoyskii aad ayaan u jeclaa marka ninkan waxa uu sheegay ayaa halkan raba inaad ku buuxbuuxis macalin waa leyli macalin wixii leyli ah adinka ayaan idin deeyay hadda fiir macalin baabasi baabasi waxa waaye waa aabisa oolum waxa waa wiil kale yeen waxa waaye yeen waxaa la ilmaha walaasha ama ilmaha aad u tahay abtiga mise habaryarta jujuglar waa caruur qoyska ayaa macna sidaa door duralam aynu buuxbuuxino ailam qoyskeyga dedem oga magaciisa qoraysaa qofka waxuu qortay mustafa anem hooyada magaceeda qor anem waa hooyada ka soco anem hooyada qor magaceeda halkaa ku qor baabam aabaha ku qor halkaa magaciisa aabeyn walaalka ka weyn magaciisa ablaan walaasha ka weyn aabeyn haddana walaalka ka weyn been oo ah aniga magacaa ku qor halaan halaan eedada qor magaceeda enishtem seediga qor magaciisa aynu ku socono halaaninkiisi gabadha habar eedada qor magaceeda halaanin oolu wiilka eedada qor magaciisa halaaninkiisi gabadha habaryarta qor magaceeda macalin halkaaba haddana macalin uu galay yazalam aynu qorno sis kimsinis yaatiin adinka sis kimsinis macalin kuwaan inaad buuxbuuxiso ayaa lagaa rabaa merhaba benim adim ali hay halkaa macalin soo buuxi benim dhash intaas ayuu jiraa hooyaday magaceed waa intaas 3 ama 4 ama 5 walaal ayaan leeyahay kadib magayaa qoraysa macalin dedenis varma awow ma leedahay markaas kaad yeenis var imisa yeen maxaa waaye seedi miya waa yenge taas yeen waxaa waaye ilmaha walaasha ilmaha u tahay abti mise habaryar waa kuwan halka ayay ku buuxinaysa macalin waa iska gabagabeyn doona macalin raba in cashirka u dhaafo 10 daqiiqo kaaja shindaasan imisa sana jirta halkan waxaa sheekeysanayo labada qof oo kala ah yareen iyo deeriya waa cashirkan 10aad qaybta aan kusoo gabagabeyn doono wuxuu yiri deeriyo yiri senin kaardeshin var imisa walaal ayaad kula dhalatay markaas tiri benim anigu iki kaardeshin var laba walaal ayaa ila dhalatay biirkiis hal gabar biiri ekik hal wiil isimleeri magacyadooda janaan ve iyo kenaan ayaa la dhahaa senin adiguna kaaj kaardishin var imisa walaal ayaa kula dhalatay markaasuu yiri benim anigu dee sidoo kale iki kaardishin var laba walaal ayaa ila dhalatay adlaari magacyadooda zaynab ve iyo
Omer ayaa la Zeynab 22 yaşında waa 42 sano jir. Omerna 20 yaşında waa 20 sano jir. Senin kardeşlerin kaç yaşında? Senin adiguna kardeşlerin walaalaha kaç yaşında imise sano jiraan? Qof waxaa ku jawaabay Canan 3 yaşında. Canan waa 3 sano jir. Kenanna 9 yaşında waa 9 sano jir. Waa cashirkeeni macalin tobnaad. Page-kan joogno waa inuu muhiim si mar waliba aad oola socoto casharada. Waa inaad tirahdaa macalinkeena Mr. Mustafa wuxuu joogay page-ka 37 halkan ayaynu ka qaadi doonaa cashirkeena 11. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.